السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوى هذا وقدوم يا باب الله إيه ساعدني فيه. كديديوغا سولو هذا دمانتين بورركن maanta idin hayaan warar xasaasiya oo aad u fara badan كديديوغا ترترينا كديديوغا تقودي تروق سنا يسينايو كودي ري سنا سودا وادا هات كسمة والله مغلى يا دمانتين ورر حساسية ما نلاها يا جيبوتي إلا يا سومالي لان يا ورر كلاوادو بدنون دين راعين دونه سودا وادا من عيش الضايعا كانوا داروا سومالي كما هيرو دليدا دليدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام يا ميل كستوا شوكتان يا الدنيا دعالدي إذا وقدوم يا باب الله وصاعده وإذن لسه هالجري إذن كلا صه الله يهالكيسي ريد مركورة وحنو إذن لنا هيدن بيجينا إياكي والدين تنبأ إلهي هدافو خاتمتنا إلهي خير هاي نقول ختم مالين يوم القيامة إلهي عذابها هاي نقدو عدالة إيا حق إيا سنانتنا إلهي هاي نوافتشيو هدي عينون هاي أمة الصوماليات wararka aan idin hayo maanta waxa kamid ah oo aan idin soo sheegi doonaa odayaasha Djibouti caaqilada ama ugaasiyada sida loo yaqaano oo ciise ee bartan kala hadli doono warar xasaasiya oo iga soo gaariya magaalada Djibouti warar kale oo xasaasiya oo iga soo gaariya dawladda Soomaaliland Muuse Biixi oo la meel uu ka baxo isagoo kildhi kula jira madaxa dabeetana shacabkii ka baqanaya lacagtina ay u taalo miiska dushiisa si uu qaatana deedeeya dabeetana doonaya cid wanjalaadan la gasha arrimaha iyo arrimo kale badanba waan idin haya meel kasto aad joogtaan dunida dacaladeeda waa saacadahan idin soo gudbin jiray warkayga anigu mister gudoomiye baabulaahi baan adduunyada waxaan ugu jeclahay cadaaladda inaan ragna waxa naga dhaxeeya in adeer iyo walaal qof kasta oo adduunyada guudkeeda joogana waxaan jecelahay inuu nolosh wanaagsan uu ku noolaado عدالة وهلو محبوسكو عدالة دي سو هلو قبضو عدالة دي أي هشو إننتو أي عدالة دي هشو إننكو عدالة دي سهرو ومدو أي عدالة إيا سنان أي هشو تاسالكو قادا وناك ننن قفك إيا حمانتا إيا دباتا ما تشعلا سيدا درتيد بانو إذين كسو قد بنا هادبا وراركا آنو إذين هاينو واتهاي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد حطبا aan warkayga dhaxgalay halkan barnaamijka waxaan idinka codsanayaa dhamaantiinba qaybta YouTube-kana waa in break subscribe-ka iyo like-ba siisaan horta sidee baatiin waan idin soo warranaawne annagana dee noo warramo subscribe-ka iyo like-ba waa ku dhufanaysaan dhamaantiin ummadda Soomaaliyeed Djibouti ilaa iyo Muqdisho Somaliland ilaa iyo Boosaaso ilaa iyo jigjiga ilaa iyo wixii af Soomaali garanayoba gudoomiye baabulaahi oo idin leh subscribe-ka iyo like-gana ku dhufta si share gareeya si gaarsiiya barnaamijkeygani waa laba qodob labada qodob mid waxa weeye cuqaasha iyo sulaadiinta Djibouti oo war degdeg uu iga soo gaaray oo halkan idinka sheegi doono waxa kale oo idin sheegaya Muuse Biixi Cabdi oo isaguna si allayaala si uu wax yiraahdo ay ku cadaatay taladii arrimuhu soo saxeexday shacabku ka baqanayo dad uu doonayo inay dambiga ay la galaan iskaga foorariyo arrimahana waa idin soo gudbinaya hadda ii soo gaaray wariyaasha la xidhay iyo arrimo kale aad u badanba hadal iyo hilbaba kala qalan baa leeyahay hadal iyo hilbaba
kala qalan hadal iyo hilbaba kala qalan bal hadeeg oda dhacmeed sida yihiin baa loo kala saaraa baan maqli jiray odayaashaan ka maqli jiray oday yaroo ii adeera ayaa beri isagoo jeebla ah ayaa dabeetana in waxa u yimi lima CID iyadoo sigaarku uu kontrabaan yahay magaalada Hargeysa dabeetana odaygii adeerka ahaa bay qabteen jaambad haybaa la oran jiray jaambad haybe ninkii garanaya kii kalena uba sheegi maayo jaambad haybe wuxuu ahaa nin ehlo xigmaawiya markii la qabto arkay inay dhar cad hayso ayuu dabeetana mid xaraaradaysan ku yiri war jaambadow markaasuu yiri nacas dhalay sawta lay wado nacas dhalay sawta lay wado war jaambadow jeeblow isagoo dhar cad ay wado markaasuu yiri nacas dhalay sawta lay wado jaambad haybe nin reer Hargeysa buu ahaa oo ii adeera aad baan idin salaamayaa soo dhawaada baan idin leeyahay imaka odayaashii Ciise waxaan leeyahay nacas dhalay sawta laydin wado ma maanta noola timaadeen cuqaashiini Jabuuti joogtay iyo in odayaashiini intoo laydin yeedho in laydin yiraahdo inantan ninkeeda u doodaysa oo hadlaysa aamusiya war naga xishooda Ismaaciil Cumar Geelle waxa weydiisan markuu idin yeedhayo oo uu idin leeyahay gabadhan Fuaad uu qabo ha aamusto TV-yada ha iska dayso in mobilka iska duubaysa ha iska dayso waxaad ku tiraahdaa ka waran adigoo xidhan oo inantaad qabtaa ay ku daydayso inta weydiiyay Ismaaciil Cumar Geelle waxa weydiisan bari baa waxa dhacday ina Maxamed Siyaad Barre inan ah ayaa tiri aaba barragana soo xidhxidhay jeelka kuugu jiray Soomaaliyeed baan soo daawado dabeetana jeelkii bay qabatay ilaa wayna yaro abaheed madaxweyne ahaa markii jeelkii qabatay ayuu nin abwaana baa ku jira sare warinantayna soo booqatay maxaabiistii bay khudrad iyo wax u geysay deeywaa ilaa wayna abaheed madaxweyne yahay wuxuu yiri ina yahay la moodaa labigi iyo mareerkiyo u reerkoodu la yahay adna layda guudbaad adna layda guudbaad leebaarsanaysaa ragna la diblaa xadhig loogu loosho isma loodin karayaan inantiibu ayuu gabiyey ina Maxamed Siyaad Barre wuxuu ku yiri ina yahay la moodaa labigi iyo mareerkii reerkoodu la yahay adna layda guudbaad leebaarsanaysaa ragna la diblaa xadhig loogu loosho isma loodin karayaan marka leedahay ay madaxda Jabuuti leedahay intay ay odayaashiina ay u yeedhaan Ciise waliba iyo sulaadiintiin iyo caaqiladiin marka khadka telefoonka wariyahayga ii jooga magaalada Jabuuti wuu soo sheegay aadabatana tiraadeen Fuaad waanu soo deeynaynaa looyarka hal la bedelo baa tiraadeen waa nin isaaqay bal hadee min ceeb ahayn looyarka wax bartay adduunyada dawladda Jabuuti u shaqeeyay hadduu nasiibkeedu uu looyarka iyada siiyay uu dabeetana u doodayo xaqiisa iyo xuquuqdiisa uu dabeetana cadaalad ka shaqeynaya ma hal la bedelaba waa nin arabe bedelaba taa idinka yeeli mayna Ciisow mid kalena idinka yeeli mayna cuqaashaan la hadlaya reer Jabuuti la hadli maayo dhalinyarada iyo dumarka waxaan la hadlayaa cuqaasha waxa kale oo tiraahdeen gabadhu waa inay aamustaa annaga ninkii soo deynayni looyarka oo isaaqa waa in la bedelaa war annaga nalama bedelo tolaya xidid baynu nahay iyo xigaad inantan Ilaahay baa ninkan u geeyay ninkeedii bay deydaysaadii ninkeedii baa Ismaaciil Cumar Geelle xidhay ninkeedii bay dawladda Jabuuti xidhay bal adigu Ismaaciil Cumar Geelle adigoo lagu xidhay ka waran oo imaka Ilaahay intuu ku xidhay ay gabadhaadu ku deydayso admiyaad dhiig iyo uustoona aanad lahayn gabadhaadu iyadoo ku deydaysa ka waran nin walo halkaa ku jiro idaawanayo bal gabadhaadu oo intoo lagu xidhay gabadhaadu ku deydaysa ka waran waynu naqaanaa gabadh waynu naqaanaa marwo waynu naqaanaa nin walba xaas waynu wada leenahay bal ka warrama xaaskaaga oo laga xidho ku deydaya ama xaaskaaga oo la xidhay gabadhaada miyaad kuba dhimateen anagu waanu ku dhimanaaba dumarkee waanu ku dhimanaaba hadda ma ifaanti waxaan markaa u soo gudbinayaa odayaasha reer Jabuuti war inantu aamusimayso ilaa ninkeeda u soo daysaan xaqa iyo cadaaladana way ka hadlaysaa wallahi way ka hadlaysaa looyarka iyo waxay wadatana wallahi waa wadanaysaa adduunka iyo Ilaahayba waa la hadlaysaa ilaa iyo ay ka qaadaysaan magaxumada oo gabadha caruurta idin leh aad ninkeedii haysataan
inankiina la hadli kari leedihiin dawladdiina la hadli karihiin ninkaaga Jabuuti jooga maanta hadli kari la maanta in adeerkii la hadli kari la hadhow marka rag iska hor timaadaan Faransiisana maxaad ku hadli fiyo baad ayaad oran miya adigiiba in adeerka la hadli kari waayay markaasaad doonaysaa inaad dabeetana aadna tiraahdo yaa in gabadha inta u timaadaan aamus oo TV-yada ka aamus dee waaye ninkeeda u soo daaya iyadaa iska aamusi baa walba idinla hadli jirta cadaaladda iyo xaqa ku simo oo waxaa ku tidhaahdaan madaxda Jabuuti u soo daaya gabadhiisa u soo daaya wabal hadda eega hadda ma ifaan u soo daaya ku dheh fu'aad iska sii daaya fu'aad haddaad iska sii daysaan Jabuuti baa degi adduunkoo dhan baa degi magac baynu heli hadda may garad annagaaba idiin ducayn annagaygan idinla hadlayn annaga miyaan Jabuutiba maana aragay annaga yagan idinla hadlayna ayaa idiin ducaynaynaba markaa waxaan ka codsanayaa cuqaasha arrimaha ku jirtaan imaka faraha kula jirtaan nin baa laga hayaa hebel waxaan shaqadiisa ahayn buu faraa la galay marwada aad leedihiin aamusa xaq uguma lihidin looyarka aad leedihiin waanu beddelanaana xaq uma lihidin adduunka waa la wada socdaa meel baa la wada fadhiyaa wax kasta oo ka dhaca Soomaaliya meel kastay tahayba waanu la soconnaa waxaanu u doodnaa dadka dulman iyo dadka cadibaad annagu wax kale uma xiiqno waxaananu ajarka ka doonnaa ilaahay agtiisa aadmiga kama doonno qof reer Jabuuti iyo qof Soomaaliya iyo qof ehel toona waxaanu haddaba ku soo goynayo Jabuuti kaga baxaya oo aan leeyahay war cuqaashii naasow cumaamadu idinka dhicina inantaa mar dambe gurigeeda marka tagtaan ninkeedii oo u wadaan guriga ugu geeya caruurta ninkeediyo gabadha ninkeediyo wadaan dee u geeya laakiin inta la idin soo diro oo dawladda Jabuuti idin soo dirto oo wasiirka arrimaha guduhu idinku yiraahdo gabadhan aamusiya annaga bal mid noogu dhufo gabadha agtana waa naag saaqe oo Soomaaliyeed waa inan Soomaaliyeed oo Jabuuti u dhaxday waa taa caruurta idin haysee dee dila oo gudnimada wada qaata sabninkeedii ma xidhin iyadana dila baade wariya ilaahay yaqaaniye nabigiisa dila annaga ka jawaabi dila inantan ma aamusaysa de ninkeedii bay raadinaysaa caruurtooda aabahood bay raadinaysaa dabeetana intuu meesha ku jiraba way la socotaa xaqa iyo cadaaladday ka hadlaysaa calanka intay soo agdhigtay Jabuuti haadade ayay leedahay anigu ma faraxsaniyo ninkaygii baa xidhan dee waa runteeda Ismaaciil Cumar Geelow bal 2 saacadood oo kaliya nin baa nin u yimi markaasuu dabeetana yiri warniyo maanta xayraan baanay asiir maanta oo kaliya haa ilaahay muu ka dhiga buur ilaahay muu hebel ka dhiga buur weligiiba ilaahay ma xaadirinay weligiiba hebel ilaahay ma xaadirinay maad ilaahay 2 saacadood maad hebel noqotid buur maanta oo kaliya ayaad adkaysan weyday buur oo lacag la'aan waad adkaysan weyday isagoo nin la hadlaya imaka ilaahow yaa 2 saacadood inantaa marwadaada ka dhiga oo gabadhaada ku bedela oo Ismaaciil Cumar Geelow fu'aad ku bedela radeeg bal siday ina xayd ku daydaydo ina xayd siday ku daydayso ayay naftu ka bixi lahayd qof waliba qofkiisa uu daydaya Jabuuti halkaasaan kaga baxaya cuqaasha iyo odayaasha iyo sulaadiintana iga gaarsiiyay reer Jabuutiyo war hooy ciisow naga xishooda ma garanayna annagu inantayda guriga ugu ma tagi kartaan ama ninkeedu uu keenade ama dee naga daaya qayladan looyarkana ma bedelayso hadalkana deyn mayso ninkeeda ama dila oo laba xaba israaciya macal ciyaalka laaya macaliyada dila macal isaga dila waa cad raganimo laakiin inta gabadhii u timaadaan aamus waa la soo deynaya looyarkan aad wadataana waa nin fariida oo cajiibo dawladdu waxa tiri waanu ka cabaadnay looyarkan naga bedela waxa loo bedelayaa waa nin u abtiyo arabe arab baa la bedelaa arab Jabuuti laguma bedelo aakhirana laguma bedelo ifkana laguma bedelo qofkuna hadduu cadaalad ka shaqaynayo cadaaladda wuu ka gungaadhaa markaa naga xishoodo inanta ka xishooda haddaydaan ninkeeda u soo deyn kareen ciisow oo idaan xiniyo ku soo deysaan aydaan lahayn oo idaan ragnimo ku soo deysaan aydaan lahayn oo ragnimo cadaalad ku qaadnaan oo ninka ku soo deysaan haddaydaan lahayn haddaydaan la hadli karahayn Ismaaciil Cumar Geelow lingeed ma ahay waa qof bilaadan qofka hadduu madaxweyne noqdo lama hadli kara miya inanta badeeda ka baxa haddaydaan ninkeeda u soo deynin caruurta bilaalayka ku jirta badeeda ka bax haddaydan waxba siinay haddaydan wax u tarahayn ciisow intuu ninkaasi amba dhimanayo ama noolaanayo iyana amba way dhimanaysaa ama way noolaanaysaa odayaasha waxaan leeyahay kolba waxa la idin soo farayo wasiirka arrimaha guduhu idin soo farayo uu idin leeyahay gabadha aamusiya idinka yeeli mayna annagu
waanu idinla soconnaa waananu idinla soconnaa waxa kale oo soo noqonayaa halkaas waan ku dheeraaday malaay waxaan kale oo ku soo noqonayaa barnaamijka EC share gareeya odayaasha reer Jabuuti iga gaarsiiya shacabka reer Jabuuti iga gaarsiiya annagu waanu la soconnaa xaalad walba oo Jabuuti ka socotaba wararkaasina imakiina soo gaareen gabadha inay yookaysan oo ku tiraahdeen aamus looyarka iska bedel ninkan mar dambe ha ka hadlin waa la soo deynayaa wasiirka arrimaha gudaha noo yeeray waarinteeda oo aamusimayso ninkeedii bay deydeysaa caruurta aabahood bay deydeysaa may faantay ma aamusayse haddaydan naga xishoonan ciisow oo inaan naga xishoonan ninka aydan sii deynahay oo idan inanta ninka u soo deynahay naga aamusay intuu ilaahay idin rogayo unta iska jooga meesha haddaydan inankiina la hadli karahayn anagu waan la hadli karnaa madaxweynaha iyaga iyo wasiirka iyaga iyo caaqilka iyaga iyo suldaanka iyaga taagaasaan kaga baxaya waxa kale oo halkan uga soo noqonaya Soomaaliland waxa jirtay nimayaho waxa jiray annagoo maalin maqaaxi fadhina oo dhowr nina meel ciicaboorka la yiraahdo ciicaboorka annagoo fadhina ayaa dabeetina orgi soo cararay orgi yari wuxuu isiri shaah madow kili kala bax ilan waa xawayaankaas dabeetana kiligiibu qoorta la gala labadii gees baa qabtay orgigii yaraaba dabeetana waxba arki waayay ilan kilibu madaxa la galay geb markii dambaan kacayo orgigii intoon qabtay baan geesi uga saaray kiligii madaxa ula galo waariyaareed kilibu madaxa la gala waxa sidaas horta dawladda Soomaaliland baa sidaas ee Muuse madaxweynaha ka yiri kili intuu madaxa la galay uu farmaajo wax la soo saxeexday oo dawladdii Soomaaliya wax la soo saxeexday oo arkaysan qudbadiisii uu ka jeedinayay madaxtooyada oo arkaysan sida uu kala dhinnayd oo arkaysan sida uu kala hadlayay oo arkaysan sida uu adna u soo tuurayay ee arkaysan siyaasad xumada ayuu imakana doonayaa beelaha qaar kamida inuu kuwan jaro oo intuu lacag qaybiyo uu yiraahdo dabeed war yaaraheen ha uu farmaajo ku yiraahdo beelaha caynkaasaba idiidan beelaha caynkaasaba shantii qodob diidan beelaha caynkaasaba Soomaaliya diidan uu dabeetana iska hor keeno beelahaas beela Soomaaliland kamida iyo farmaajo iyo caalamka iyo adduunka inuu iska hor keenaa buu doonayaa wuxuu walaaqayaa siyaasad yaro malaayacniya Muuse adiga soo galay adiga iyo wafdigii ay ku jirteen baa saxiixa qaatay adiga iyo wafdigii ay ku jirteen baa arintan gaadhay hadda ma ifaan adiga iyo wafdigii ay gaadheen baa arintan gaadhay laakiin beelahan aad wanjalayso ee aad doonayso inaad Muuse adduunka ka hor keento iyo dawladda farmaajo haadade eenu anigu fahmayno in shacabku fahmahayn ee aad ku socoto rag aanu ognahay oo aad doonaysid ra'iisul wasaaraha ilaa khadar la yiraahdo Soomaaliya arag ee Muqdisho waa nin reer Soomaaliland waa nin isaaqa waa nin qolo ka soo jeeda qolada adigoo ku duulaya ayaa doonaysaa inaad dabeetana ka hor keento beeluhu ka soo jeedo farmaajo aad ka hor keento dabeetana waxaad adigu soo qaadatay dabeetana aad tiraahdo qoladaasaa diiday nimankaasaa ay diiday xajiis dabeetana oodimankana waxaanu ognahay oo imanka wariyahaygu noo soo sheegay inaad adigoon weligaaba lacag bixin aad intaasoo kun oo bilyan oo dollar qaaday aad doonaysid inaad sulaadiinta iyo caaqilada intood u qaybiso TV-gana aad tiraahdo ka hadla oo waxaad tiraahdaan dabeetana aan farmaajo ku yiraahdo niyo arrintii waxa diiday beeshaasaa diiday beelweynta qarxajiis baa diiday odayaashoodii iyo sulaadiintoodii baa war waxa anagu waatan iska diinay waxa waanu ka horeynaa dadku 2020 bay Muuse u marayaan 2020 ayay marayaan hadda ma ifaanti marka kildhigan adiga madaxa la galay adiga Mareykanka wax la saxeexday adiga dawladda farmaajo wax la saxeexday shacabka iyo beelaha Soomaaliland kuwa Sacad Muusana ha wanjalin kuwa garxajisna ha wanjalin kuwa arabna ha wanjalin kuwa foqorjinina ha wanjalin kuwa dhulbahantana ha wanjalin kuwa gabooyana ha wanjalin ummadana ha wanjalin adiga iskaga dhex jiree adaa soo saxeexday si ay lacagta kuugu xalaalowdaaba doonaysa lacagtii halka ku saarane annaga odayaasheeda lacag iyo waxa waanu ka horeynaa imankana waxaan uga digayaa odayaashaas Soomaaliland iyo qabiilada Soomaaliland yaala waxaan idinka digayaa anigu nin weyn oo wax og baanay nin weyn oo wax og ayaanay dadka qaar baa waxay yiraahdaan niyo baabulaahi waa xageed baabulaahi dawaanin ilaahay
درتي وسعده ويانا وحول بالله سعده والله رجع أدونك كنول وما كم ده هيدانو رجع أدونك كنول أيوم ما كم ده هاي سيدا إيدي خلايدي دارو ما ديل هيدا ما قرأت سيدا هو يا أبو ليدي ما ديولها تبى تناوح عن كم ده هون لكن عقلية ضيدة إيه مسكحية ضيدة أيام ميل والبكرة صعنا رأيك إيه أقوان تيدا أيام ميل كستوي سومالي شوكتو أنا الله صعنا ونقول راديننا وحنا أكثر يجوبني ماذا قلني ماذا نوانو ديننا وين تصون قلني ماذا وانو ديننا waxaan hadaba u soo noqonayaa oo aan leeyahay hal la iska ilaaliyo beelaha Soomaaliland ha iska ilaaliyaan wanjalaaday dawladdu ku jirto iyo in killigay madaxa la soo gashay iyo mashruucay soo qaadatay iyo farmaajo waxay soo kala saxeexdeen beelaha qaar baa la doonayaa in dabil la geliyo TV loo geeyo dabeetana hadlaanay ka hor yimaadaan ha hadlina oo Muusa ka madaxweynaha meesha ka madaxweynaha isaga mashruuca soo qaatay isaga waftigu inuu ku jiray ka haystay isaga meesha tagay isaga soo saxeexday cadaamadu isaga ha ku dhimato haday federaal tahayna isaga ha ku dhimato haduu Soomaaliya isku darayna isaga ha ku dhimato ilaahay ha arko awal ha arko arab ha arko in Djibouti ha aragto Mareykan ha arko in ummadu ha aragto ha u bixina qofuuna ha ka hor imanina u shuuriya ma maqashay nimankaasi way aamusay sidii nimankii Yoonis saddex nin oo Yoonis bari aamusay oo ilmaadeernahay midii wixii war hasha nirigta midna wixii war maraqa midna wixii war ooda hadeeg kibir bay la aamusay waa saddex nin oo ilmaadeerahay oo geel fara badan lahaa ayaa kibir la aamusay oo Yoonisa dabeetana wixii hasha midii wixii war hasha midna wixii war nirigta midna wixii war ooda hadeeg ardaabay wada jiifaa saddexdaan laakiin intay geel badan yeesheen bay kibreenoo saddex qoriyo afjeexana weysitaan dabeetana markaasay ilaahay mooye cid ay ka baqanayaan ma jirto dabeetana wuxuu yiri war hasha midi markaasuu midna yiri waa nirigta asuu midna yiri war yaahe in ooda hadeeg waa sarbeeb hadalku waxa weeye oo aamusa Muuse waa oo aamusaysan wuxuu wadaa miina uu gabooyo galiyaabo wada miina uu awal galiyaabo doonaya miina uu garxas galiyaabo doonaya miina uu dhulbahanta galiyaabo doonaya miina uu shacabka galiyaabo doonaya miina uu samaroonta galiyaabo doonaya waana ka horeyna marka ka fadhiisto hadii aad aragtaan ilaa caawil lacag sida u yaacaysa bad baa la idin gelinaya ka fadhiista mid laga qadaaba jirtay awalba uu bixin la lacagta waa u baahnaydeen laakiin maanta ujeedu leeyahay waa ku jiq mareenkiiba halka ka soo daawanaya adduunkii wax la saxeexday baa soo daawanaya shanta federaalka uu soo qaatay Soomaaliyana uu soo qaatay hawsha Soomaaliya dawladda Soomaaliland way soo qaadatay isagaana ka madaxweynaha maniga ka madaxweynaha Sultan Maxamed baa ka madaxweynaha macadda gudaa ka madaxweynaha sultaanka awalka ka madaxweynaha sulaadiinta samaroon baa ka madaxweynaha qof wal oo kasta oo madaxweynihiiba taariikhdu ka tagun buu leeyahay ma garata taariikhdun baa loo qorayaa Ismaaciil Umar Gelle waa loo qorayaa Fuaad wuxuu ka yeelo Muuse waa loo qorayaa Somaliland ka yeelo beentu wado hawshay wadaan siyaasaday wataan arrimahay wataan hadda ma garata arada ma garata aad may maqlaysaa marka sii sheergareeyay barnaamijka oo ka fadhiista waxba la isku walaaqayaaye ka fadhiista Muuse wuu ku jiraayay Mareykanku wax la soo saxeexday adduunku wax la soo saxeexday isaga dawladda ka madaxweynaha oo ga fadhiista oo ga aamusa halkaasaan kaga baxaya waxa kale oo idin sheegaya oo idin soo gudbinaya oo aan idin soo sheegaya adduunyada waxa jira wax la yiraahdo cadaadin iyo dhibaato aad u fara badan baa jirta dhibaatada aadka u fara badan ee farmaajana haysata ee Muusana haysata shacabkiina uu Muuse ka baqanayo dadkii nin nacamleyn jirina uu ka baqanayo calanka Soomaaliland qarankii waa laga soo afjaray gam foosto gobol uu madaxa kula jira wuxuu doonayaa inuu sulaadiinta arab soo kiciyo yiraahdo diida wax waar ka fadhiista uu daayay isaga arabo ma maqlaysaan ha u bixina sulaadiinto kale ma maqlaysaa Sultan Maxamedow ha u bixino TV ha ka hadli ma maqlaysaa cadde gudow TV ha ka hadli ma maqlaysaa sulaadiinta kale Soomaaliland iyo kuwa samaroono TV ha ka hadlina ooga fadhiista isaga iyo reeganimadiisa isaga iyo waftigu kaxeeyay reeganimadiisa ina sulba ka baxade hadda ma ifaan ka baarlamaanku ha ka baxade hadda ma ifaan waftigii uu la socday ha ka baxo isaga ka madaxweynaha cadaamada ha ku dhimato habbireeyay Soomaaliland ha u bixina baan anigu idin leeyahay wabla ilaahu ka marxaati ahow waxaan la socon ma jiro siyaasad weyn buu wataa ma garateen yuu markaa idin gaban waxaan idin leeyahay markaa dhammaantiin meel kasta oo aad joogtaan
si wanaagsan baa ii maqlaysaan baan u malaynayaa waxaan hadalkayga ku soo goynayaa cuqaasha reer Jabuuti cuqaasha reer Jabuuti caaqiladooda sulaadiintooda loo yeeray ee dabeetana yiri gabadhan aamusiya inantani aamusi mayso waa naag isaaq oo laandheera oo reer Hargeysa ma aamusna annagu reer Jabuutiyow annagu ma aamusno haddaan cadaalad darro aragno ma aamusno annagu maalin walba waan soo hadalnaa ma lacag ma nasiisaan cadaalad darradaanu diidani ma garatay waliba waxaanu ka yeelanaa sancaani miidhan waxaanu ka yeelanaa koodbuur miidhan waxaanu ka yeelanaa maxamed mooga miidhan waxaanu ka yeelanaa rag maxamed cali miidhan waxaanu ka yeelanaa ibraahim koodbuur miidhan waxaanu ka yeelanaa axmed dhagax miidhan waxaanu ka yeelanaa rag khataraanu ka yeelanaa waliba cadaalad darrada annagu cadaalad darrada waxaanu ka ma yeelno waxaanu jecelnahay in ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliland ba cadaalad ku noolaato in ummadda Jabuuti iyo ummadda Jigjiga cadaalad ku noolaato haddii aanu aragna inay halka cadaalad darro ka jirto annagu waanu dhawaaqnaa inantanna annagu mayde waa naga guursateenoona de waa annagii naga xishoodo inanta ha aamusiinina looyarkay wadatana ha oranina waa isaaq duu isaaq yahay isaaq miinaan tol iyo xidid hayn warkaalaya reer Jabuuti tan naga qabtaan Ismaaciil Cumar Geelle qabaamayan naag isaaq ahayn maxaa inanka uga hanjabaysaan arab ee looyarka ah ee ay wadato ee ay u leedihiin ninkan looyarkaana ha la bedeli maayo waa nin ku dhacle arabkana lama bedelo aakhire laguma bedelo iftiinka laguma bedelo annaga ku sheegayna yina Jabuuti iskula imanin inantaas ninkeeda u soo daayay inanta kale naga xidhanna ee aanu idka qabnina loo soo daayay bal hadeega waa yeeli weydin soo maaha ciisow dee naga daaya hadalka oo inta dhimanaysaan waanu idin daawanaynaa ma garatay laakiin annagu inantayda waa la soconnaa inanta kale aanu idinka qabnana waanu la soconnaa xidhan ma garatay ee diriiska bixisay waa la soconnaa inantaydan kale ee qaylinaysana waa la soconnaa odayaashana ka yeeli mayna inay guriga ugu tagaan gabadhayada oo dabeetana yiraahdaan ay handadaan oo dabeetana aad tiraahdaan wuxuu la yiri wasiirkii arrimaha gudaha ee Jabuuti gabadhu ha aamusto war gabadhii saaqi ma aamusto Soomaaliyadii ma aamusto mana aamusi doonto ilaa aad ninkeeda u soo deyso cadaalad iyo xaq aad ugu soo deysaynaad ma garatay wasiirka daakhiligana waxaan leeyahay bal gabadhaado bal adigoo lagu xidhay ka war bal adigoo carruurtaadii laga xidhay ka war bal adigoo gabadhaadii laga xidhay ka war bal yaa adiga kugu bedelay 2 saacadood u soo daayo gabadhiisa ninkeeda u soo daayay cadaaladda iyo xaqa ku sima ummadda Jabuuti waa ummad wanaagsan annagu bari horaanu dicuna layne wariyaa 2 saacadood nimanka Hargeysa noo keena wariyaa 2 saacadood dhulkii noo keena ay Soomaalidu joogtay yaa 2 saacadood hataa Soomaalidan kala joogi lahaydeen gebigiinaba waanu idin la fuqi lahay dad wanaagsan baa haysataan oo masaakiina oo leerka hadii laga gooyo aamusaya oo biyaha hadii laga gooyo aamusaya war dad wanaagsan baaba haysataane waa idin soo salaamaya waxa barnaamijkayga aan kaga baxaya oo aan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba xaq iyo cadaalad ha laga shaqeeyo aadna waa idin salaamaya dambigeena Allah ha dhaafo iyo kii waalidiinteennaba muusana wuxuu soo wadaa silsilad aad u fara badan imakaba ka fariista ayaan idin leeyahay cuqaasha iyo sulaadiintahay waa idin salaamaya in arrintu waxay maraysaa meel xasaasiya arrintu waxay maraysaa Mareykankiiba inta soo hadlaya telefoon ba inta dhigta laga hayaa ku dhawaaq baa la leeyahay wixii aanu saxeexnay ku dhawaaq baa la leeyahay Soomaaliya inay israacdo ku dhawaaq baa la leeyahay federaalka ku dhawaaq baa la leeyahay arrimihii aanu lacagta kugu siinay ku dhawaaq baa la leeyahay haddii kale waanu ku kashifaynaa cadaadis badan oo dawladda Soomaaliland saaran baa jira oo adduunka ka saaran hadda ma ifaan marka isaga ku dhimata cadaamadu idinku ha u bixina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh